kelimadeena gaaban waxay ku saabsan tahay walaalnimada iyo ukhuwada islaamiga ah qiimaha ay leedahay waxyaalaha dadka isku xira haday tahay deegaan haday tahay qabiil haday tahay luqadda haday tahay jinsiyaadka kulligood rawaabitaasi waa wax kooban oo meel dheer aan jirin aqwa rawaabit waxyaalaha dadka isku xira waxa ugu xoog badan waxa weeyaan al-ukhuwatu al-islaamiyya walaalnimada ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ah oo walaal ka dhiga ilaahayna wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu ayaga baa walaala ah walaalnimada dhabta ah waa mid labada qof diinka ka dhaxeeya oo islaamnimada ah ukhuwadaas qiimaha ay leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u yeelay xuquuq iyo waajibaad koo waxa kamida xuquuqdaas iyo waajibaadkaas qofka muslimka ah inay ku beeran tahay oo u taagan yahay inuu walaalkiisa kale u kaalmeeyo oo u gargaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa in istansarukum fi ad-din fa alaykum an-nasr waxa ilaahay uu leeyahay wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan iskugu kaalmeeya khayrka iyo samafalka iyo birriga ha iskugu kaalmeynina xadgudubka iyo dambiga nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam unsur akhaka zaliman aw madluma walaalka u hiili haduu zalim yahay iyo haduu madlum yahayba haduu zalim yahay macnaheedu waxa weeyaan ina dulmiga ka qabatid oo ka joojisid ayaa heela u noqonaysa ilaa haduu dulmiga ku socdo naar buu ku galay waxa kamida rawaabida iyo waxyaalaha isku xiraya dadka waajibaadka iyo xuquuqda isku leeyihiin alla yadhlima almuslimu akhahu almuslim qofka muslimka inuunan dulmin walaalkiisa kale oo muslimka ah nuucu doon ha ahaado dulmigaas wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam almuslimu akhu almuslim qofka muslimka ah wuxuu walaal u yahay oo la yahay qofka kale oo muslimka walaalkiis weey لا يظلمه ما ظلميه ولا يخذله ما هوجيه oo hiilu u baahan yahay garabkiisa kama baxo wala yahqiruhu malido intaba qofka muslimka ah qofka kale oo muslimka uma qooro mana ku sameyn kara mana u banaan wuxuu bal nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam bihasbi imri'in min ash-shar an yahqira akhahu al-muslim qof waxa ugu filan shar iyo dambi waxa ugu filan inuu walaalkiisa muslimka aliido oo xaqiro markaas nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam kullu almuslimi ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu qof muslima qofka kale waxaan loo ogolayn oo xaraam ka ah dhiigiisa iyo maalkiisa iyo 'irdigiisa iyo sharaftiisa inuu meel uga dhaco waa ka xaraam waxyaalaha maxabada ka laazimaya oo ukhuwada iyo walaalnimada ka laazimaya waxa kamid ah qofka muslimka ah waxa weeyaan qofka kale inuu u naxariisto oo u daqnado oo u turo wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad qodadka mu'miniinta ah sida ay iskugu naxariisanayaan iyo jacaylka isku qabaan dhexdooda iyo sida iskugu tacaatufayaan waxay la mid yihiin hal qof jasadkiis idha ishtaka minhu udwun tadaa'a lahu sa'iru aljasad bis-sahri wal-humma halka qof hadii xibnihiisa mid kamid ay xanuunsato xibnihi oo kale oo dhan waxa weeyaan qofkaasi waa dhafraya way la xanuunsanayaan way la daqnanayaan macnaha nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mithaal 'azim ah ayuu wuxuu u yeelay sida mu'miniinta la raba inay isku ahaadaan haduu walaalka xanuunsan yahay la xanuunso haduu baahan yahay la daqno haday dhibaato kala haysata adigana waxa weeyaan dareenkaasi daqnashadaasi ha kugu jirto waxa uu nabigu kala mid dhigay hal qof oo xibin kamida xibnihiisu ay xanuunsatay sida xibnaha dhan iyo jismiga dhan oo la xanuunsanayo
وقفكاسي ولا قندون ولا قندون أيو وقفكاسي أسو دفر يعاو أسو ولا شيء هيو ما دام حمين كمدي أي حنوصتي سداس أو كلويان ضدك مؤمنين طا نبي وحي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قفك مؤمن كاي قفك كلوحي إياه دس أيو إياه قاركيس قارك كلوحوتين أيو مركا وحلا دس أيو دقحان إيا دقحان شميتada oo lagu daray la isku keenay way isxoojinayaan dadka muslimiinta ah haday isku meel u wada jeedaan oo quwadaas iyo walaalnimadaas ay ilaaliyaan oo Ilaahay uga baqaan way isxoojinayaan cadawgooduna marnaba kama adkaan karo waa dad isku kalsoon waa dad isxoojinaya waa dad istaageeray xuquuqda qofka muslimka ah kulliya waxa kamid ah an-nusx inuu qofku walaalkiisa kala u naseexeeyo arrimihiisa diiniga ah iyo midda dunyawiga intaba wanaaga inuu amro xumaanta inuu ka reebo wadka jaahilka inuu wax baro waxay kamid tahay xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihiin wuxuu yiri jariir radiyallahu anhu wuxuu yiri baay'atu rasuulallah ala iqaami as-salah wa itaa'i az-zakah rasuulka waxaan beeca kula galay salaada inaan oogo zakadana aan bixiyo iyo wa nushi likulli muslim qof kaste oo muslima inaan u naseexeeyo ayaan beecada nabiga kula galay sallallahu alayhi wasallam walaalka oo khaladka ha ku fiirsan wada awooda hal kelima inaad tiraahdid walaal waxaani waa khalad ilaahay ka cabso diintaada wax u dhimahayaan waxaani adduunyadaada wax u dhimahayaan arinta iyada iska ilaali wada awooda wax fududna weey marka waxa weeyaan waa inaanan walaalka muslimka ah xaq uu nagu leeyahay oo naseexada waa inaanan uga bakhiilin walaaliya xuquuqda waxa kamid ah inaad la jeclaatay walaalkaaga muslimka ah waxa aad naftaada la jeceshahay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi qofkiin iimaan kaamila mawna rumaynin ila naftiisa waxa uu la jecel yahay walaalkiisa muslimka uu la jeclaado waxa la mid ah inaad naftaada waxa la nacaysid walaalkaaga muslimka ah la nacdid inay ku dhacaan wayna la nacdaa oo walaalkaaga muslimka waa inaadan sharta iyo xumaanta iyo dambiga iyo dhibaatada aadan la jeclaan inay ku dhacaan waa inaadan la jeclaan waxa naftaada aad la jeceshahay oo khayr iyo wanaag ah waa inaad la jeclaataa walaalkaaga muslimka waa inaad la jeclaataa waxa kamid ah xuquuqda muslimiinta inay isku duceeyaan oo waxa weeyaan walaalkaaga muslimka oo ka maqan u ducaysid ducada aad u ducaynaysid walaalkaaga muslimka oo ka maqan ومن أسباب الإجابة أسبابها إجابة إيا قبولك لغو أقبله وإلهي سبحانه وتعالى دعوينك أسبابها وكو أقبله كم التهي إنا أدعي سيد ولالك أغا مسلم كاه وأن كلتشوغ وحو النبي يري صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة قفك مسلم كاه وحويان بريها إيا الدعاء ولالك كم مقن وأن لا تشوغين ودعينا هيو ومستجابة وأن لا أجيبه والله أقبله أسأل كل ما تشوغه أما مقالة ملك تشوغه أما السفر بقالوا ملك الوشرة وولالك أما قرابها كلا هذا الدو المهاجة حاسكاجة ولا لها أبيالك هويالك هويوينك أما صاحب نمك لها إذا كان حيسو دعاء إن أدعي سيده وخير الدنيا مد آخرة وأدعي سيد هكذا بخيلي وأن لا أجيبه وأنا الله أقبله وحو النبي يري صلى الله عليه وسلم عند رأسه ملك موكل قفك الدعين إياه وولالك سكم مغن الدعين هيا مدحي سأكتي سوحا تشوغه ملك الله وكي شيء كلما دعا لأخيه بخير مر الله عليه مركو ولالك سمقا ودعي خير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ملك الله وكيش وحو ليهي آمين إلهي دعاداس هو أقبله أدوغونا وحا ليهي انت أوكله أي اللغة مركا أدوغينا ملك جيبا كوغو دعيي ودعادي واهي شيء ولالكاغا مسلم كان ووها داد بدن باجرهن أو قرابة داد بدن أو صاحبها جرهن دباتوين أي كدعين كوا بقدن بارفات ديون إيا حولا بدن لقول ليا كوا عبسية أرقاق أي هيسا وحويان دعاداسا وحويان مسلمين تو أي كنو ليهين
إلهينا سبحانه وتعالى dhibaatooyin badan uga faydaya waa inaynu ku didaalnaa marka inaanan walaalaha ducada aanan uga bakhiin ukhuwada islaamiga ah waxay la mid tahay waxa weeyaan hal tiir oo kaliya weey hal tiir oo kaliya weey qof kastana waajib bay ku tahay walaalnimada inuu ilaaliyo wax alla wixii walaalnimadaas dacninaya oo duraya oo ka hor imaanaya oo walaalnimadii jabinayana waa waajib in laga dheeraado wax alla wixii walaalnimadaas iyo ukhuwada xoojinayana waa waajib in la taageero waxa weeyaan muslimiinta tafaraaruqa iyo kooxaha kuwa siyaasad u kala go'go'ay kuwa urur diimeedyo noqday kuwa waxa weeyaan qabiil isku baabi'inayo isku laynahaya sharta iyo balaayada asal waxa u ah tafaraaruqa muslimiinta ay kala tageen ay qabiil u kala tageen ay siyaasad kala ku kala tageen ay kooxad diimeed iyo urur diimeedyo iyo magacyo ay kala duwan ay la kala baxeen waxaas oo dhan waxa weeyaan wax tarahaya oo ukhuwadii islaamka wax ka taraya ma ahan bal waxa weeyaan wax dhibaato u keenaya muslimiintii weeye qofka muslimka ah wuxuu qofka kale ku qiimeynaya oo laga rabaa waxa weeyaan inuu yahay walaalkiisa muslimka ah inta uu daacada ilaahay iyo diinka ilaahay u dhow yahay ayay maxabadiisu ziyaado noqonaysaa inta khayrka uu ka durugsan yahay ayay mataqaanaa maxabadiisu ay yaraanaysaa oo labada qof midka macaasida iyo dambiga ku dhex jira iyo midka waxa weeyaan cibaadada iyo khayrka badan isku si agtaada ka noqon mayaan kana soo dhow kaasa ku xiga kulligoodna walaalnimadii baa loo ilaalinaya qofkuna waxa ku filan inuu ahaado walaal muslim ah walaalkiisa muslimkaana wax kale ayna u dhaxaynin kooxaysi ayna u dhaxaynin ilaahay dartii ay isku jeclaadaan sidaas muslimiintu ku midoobi karaan ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo